adigoo madaxweyne biixiya iyo reer axmed dhagax bal laydin dhacay oo dalka laydinka qaaday oo ay galaan doorashada maanta waxaan rajaynayaa inaan ururka kulmiye iyo ururka wadani la tartamo ku tartamo hablayaga somalilan ku tartamo somalilan oo dhan haddii awalaalayaal layla guulaysto anugu kuwa xanaaqa noqon maayo ilaahay waymooyo kuwa xaqartaga noqon maayo hargeysa waxaa iga badan inaan jooga hargeysa naga raalli aada saxaafaddu hadalkayga jecesho waxay diyaarsanayeen mikrofoonada bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad salaanta waxaan jecelahay inaan ku horraysiiyo hablahayaga qaaliga ah laakiin caawa dhaqanka iyo diinta ayayna faraya inaynu madaxda ku horraysiino salaanta waxaan halkan si kaliya laaba uga salaamayaa madaxda halkan fadhida masab kastoo ay leeyihiin iyo madax kastoo ay leeyihiin ay nolosha ku fadhiyaan waan ku salaamayaa salaanta bilowgeeda hablaayada waxaan ku salaamayaa maradan ku xigsiiyey anigoo suugaanta in yar ka soo gala erey ka mid ah salaamka oo haweenku gaaru leeyihiin waxaan idin leeyahay waaye tifiga qaranka soomaaliya sii dhawakan waaye hablaayada waxaan ku salaamayaa erey baraan baan leeyahay marwooyinka madaasha joogo lowsalahay macan noocuubayoga carabiisaan kuma milyon oo manka ka soo godayo mawjada haguda ayaa hamuulan tahaydigo cawami iska dhigay bismillaahi raxmaani raxiim mar saddexaad waxaan salaamayaa hooyada haweenka hooyo oo maamuleenaya si gaara caawa markii haweenku soo kacay daleen gaara oo hooyo jacaylnimo ayaa la wadaagayay hooyo ilaahay baa kugu simay oo ku hambaleenaya mar saddexaadka waxaan doonayaa abwaan jeeliye markii aan baranayay hees qaaliyo waan leeyahay baan ugu ku bartay heesta biigii halkan caawa kugu xusno waxay ahayd qofka ruuxa gacan maran inkastoo ku cawrani garabkiisa sulan yahay yaan waayiinna waa intigu odhan mamaaye taasay ahayd waxaan doonayaa abwaanka buugga laga qoray abwaan cabdiidaan faarax wuxuu ka mid yahay halgamayaashii ee sanada ku sugtanaa halganka anugu odhan maayo maanta 2 iyo 3 baynu nahay marka laga reebo siyaasiyiinta ku tartamaya dadkooda weli dadka reer somalilan mid weeye waa ehel waa ul iyo diin laakiin markaa midin kala jiidanayno nin walba ardaa uu doona gelinaya iyo ruuhada kaga sheegtan uu odhanaya walaalayaal waxaynu nahay ul iyo diin loo halgamay anugu waxaan ka mid ahay dhashiyaysanan dhiiggiisanaba dhulka ku daatay dhirtii ka soo baxday baan ka mid ahay anugu waxaa iga dambeeyay oo halkan fadhiya generationka saddexaad ee igu xigay oo iyaguna ah dhiiggiisanan ee dhulka ku daatay dhirtii ka soo baxday ubixii dhirtu yeelatay ayaa iyaguna halkan jooga maanta meel ku sida qaranka somalilan sidoo kale waxaan caawa joogaa guri halkan baa fadhiya caawa madasha mudanteedu dadka reer axmed dhagaxo mudankaa madashan caawa waa halgamayaashii qaranka jamhuuriyadda somalilan walaalayaal reer axmed dhagaxo waxaynu wadaagnaa anugu markan roodaahay wadaniyadda dal jacaylka dowladnimo jacaylka dhiigga iyo duuxa ay ku dhinaantay qaranimo jacaylka
halkan soo istaagay waxaa la safiirkii Uganda dabadeedna waxaan tijaarkiisu wali qalabkiibiya wadamada dadka wax uga wareegin dabadeedna isagaa beeniyey markaa waxaan rajaynayaa markaan kelmadda siyaasiga halkan ka idhaahdo mujaahidkii cabdullaahi iimaan xuseen darawal haddaan ururkiisa idinka joogin kelmaddiisa caawana odhanaya waxaan leeyahay cabdullaahi iimaanow madaxweynaha fariin baan u dirayaa anigoo afkaaga ku hadlay waxaan leeyahay madaxweyne waa inaad albaabada furtaa oo la samayso wadahadal dhaba dadka ururka horseed oo aad ku qancisaa in adigoo madaxweyne biixi ah iyo reer axmed dhagaxba laydin dhacay oo dalka laydinka qaaday oo ay galaan doorashada dowladii hore kuwa shaqeeyay dowladda muuse kuwa shaqeeyay kuwa xildhibaanada ah kuwa maanta $4,000 qaata ee haddana anigu $1,000 qaadan haddana aan Somaliland ka jecelahay
noqoto